بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا ليال waxaan isku dayayaa inaan ka hadalno dariskaasi ku saabsisan fawaa'idda ama fawaa'idka tarbawiga ah ama waxyaabaha laga faa'iideeyo laga qaadanayo hijradii Nabi Muhammad salawaatullaahi wa salaamuhu calayhi. ugu horeyn waxaan idin xasuusinayaa marka la yiraahdo Nabi Muhammad baa laga waramayaa, macnaheedu waxa weeyaan acdamu shakhsiya taariikhiya fi العالم. taariikhda bini aadamka soo martay soona mari doonta qofkii bini aadamkii ugu weynaa taariikhdiisii qayb ka mid weeyaan. idan taariikh البشرية كلها oo nabigu tilmaamayo ana sayyidu walad aadam wala fakhr, أنا أرير نبي آدم سيد كودي أي لغا ورميا. وحين كورمنا قف الله سبحانه وتعالى وقرآن كيس كت المامي وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن ما أها قف عادية، ما أها تاريخ عادية. ولذلك نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه تاريخ دي سلغا ورما وحيوبا هانتي إنه إن بدن دقا ورارعنه inaynu in badan hubinno iyadoo qasaska ama anbiya ha ahaadaan cid laga warramay ama kuwa kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka ugu tilmaamay saddex faa'iido kala gadisan. laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusul ma nuthabbitu bihi fuadak faqsus al-qasas la'allahum yatafakkarun. الله سبحانه وتعالى صدح دا آيادود وحا وكت المامية قصدو إني عبرة وطهي وح لغو قياسته أو لغو جانقويسته إني تهي وحكا الله تلمامية قصص كأنبيادو إنيين وح قلبي لغو دجيو وحكا الله تلمامية سبحانه وتعالى قصدو إني تهي وح تفكر يقفكو إنو وحفر صدق هنا. هدي عموما قصص كبني آدم كي أنبياء أي نوع عاسيهين، فما بالكم بقصة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا ما لين سامركو وركو يهي وركو صابسيسا نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذا النبي كاي يهي أيام مر لبعض مسألة ينكور رمينا وحويان تاريخ ذا مسلمين تدعددي أقوينيت، ومسألة الله يقانا هجرة. هجرة وحي علماء يدادان ودعدد أقوين حلي النبي صلوات الله وسلامه عليه. يسوغو النبي دقال لقالي سرايا ديري وحبضا صامري. هذا مركز الصحابة قاتين قوان كي أها إني تاريخ سميان وحي تاريخ الإسلامي ودورتين إني قاتان حدث كي هجري dhacdadii hijrada. dhacdadaasi oo ah dhacdada aynu maanta ka tirina taariikhda islaamiga 1427 baynu marinaynaa taariikhda islaamiga hijriga ee laga tiriyo laga soo bilaabo maalintaasi uu nabigu hijrooday salawaatullaahi wa salaamu calayhi. idan laba shay oo waaweyn baynu ka warramaynaa. midi waxa weeyaan inuu nabi Muhammad salawaatullaahi wa salaamu calayhi qisadu ku saabsan tahay. كاللبادنا وحويان إن يتهي دعضوينكي ugu وينا تاريخ النبي صلوات الله وسلامه عليه. ما دام النبي نكو صابصان تهي دعضوينكي سو مرينا تيو وينيدا إنو كنت المامينو ومسألة باهان بدن ليس دول تاغو وح بدن لغا فايدة. تاريخ الهجرة علماء المسلمين تها رق بدن وكمدي صدح حفر كود باراركي waxa ay si dhinac dhigaan hijradii nabiga salawaatullaahi wa salaamu calayhi
iyo xaadiثaة الإsrا waa laba dhacdo isku dhadhowaa hijradu waxay ahayd socod nebigu uu socday oo la raadcaynayay oo la rabay in la dilo oo uu dhuumanayay oo uu god galay oo uu saxaaro lugeeyey oo uu dhul badan socday isra oo in yar ka horeysay al-isra wal-micraaj wuxuu ahaa nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo ilaahay intuu ka kaxeeyey maka uu geeyey bayt alqudus oo qudus laga dheelmiyey oo samada la qabadsiiyey su-aasha isweydiinta lay culammadu isweydiiyeen marka waxay tahay hijradii maxaa ilaahay nebiga u siin waayey iyana buraaquu fuulo maxaa waxaanoo kadeeda loo mariyey ilaan markii alle subxaana wa tacaala dheelminayaba intuu ka qaaday maka ayaa baytulqudus oo ka fog madiina in badan la geeyey haddana laga qaadayoo samada la qabadsiiyey haddana uu soo noqday habeen qudhu waxaa soo farsamaa soo qabtay habeen qudhu socodka intaa leeg soo maray hijradana dhowr iyo 10 maalmood buu lugaynayey oo la eryanayey oo uu godgelayey oo dhibtani haysatay culammadu waxay yidhaahdaan waa maxay labada xaadiso maxaa tasawurku wuxuu keensanayaa nebi maxamed oo fakanaya ma markana buraaq la siiya uu fuulo uu ka boodo uu maka dabeetana saacada kadib uu tago madiina waxay yidhaahdaan culammadu markay masaladan ka warramayaan xaadiثaة الإsrاء oo nebiga rafiiqiisa uu ahaa jibriil buraaqna uu saaraa isheedu intay qabato mar qudha booda waxay ahayd bay yidhaahdaan rixlaةu tashriifin wa taqdiirin wa takriim waxay ahayd bay yidhaahdaan safar uu alle subxaanaه wa tacaala nebiga sharfayey oo la karaameeyey waxay ahayd safar la qabadsiiyey inuu soo arko min aayaati rabbina alkubra aayaadka alle subxaana wa tacaala ee waaweyn inuu soo arko waxay ahayd safar ilaahay uu qalbigiisa dejinayey waxay ka mid ahayd khusuusiyaadkii nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu gaarka ku ahaa waxyaabihii uu gaarka ku ahaa waa waxaan la rajaynayn qofnaba inuu helo